dadka salaada tukanaya shan buu u kala qaado wuxuu yidhi qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yidhi waa kuwee waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadeeda iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yidhi fawaylun lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabayaa baa la yidhi qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoogu xaadir maaha min albidaaya ila annihaaya salaadoodu waa sahwi kuwaana salaadoodu ilaahay bay hor taallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaada jamaci iyo jamaacaddii iyo masjidkuu ku ilaalinayaa laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu shayddaanku la tegayaa deedna uu ka soo celinayaa haddana uu la tegayaa uu ka soo celinayaa kaa salaada intuu la yimidin ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinayaa baa la yidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaane awliyada istaciinuu biالصabri waالsalaa waa kuwa maaragtaane xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday cedeedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey haddii abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey haddii masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaara loo jideeyey istaciinuu biالصabri waالsalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaaddii nebigeenna calayh isalaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaadda inoogu raaxay han ku raaxaysanne xubiba ilayh min addunya alaa adduunka waxa yaalla saddexba aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey aiibu waxa wixii udugee udgoon waannisaa iyo haweenkana waa lay jeclaysiiyey wa jucilat quratu cayni fi salaa halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayaanna salaaddaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaaddaasay barteen iyaku inay salaadda ku raaxaystaan in salaaddu ay u noqoto meel markay salaadda ay xidhaan adduunyadaba ay ka tegaan nin culammadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaadda xidho haabit albunaani baa loodhan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay sead ku hesha adigu salaadan mar alli markuu salaadda tukanay lilmada ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli الsalaati ل20 sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buu yidhi salaadaas kayfiyadda salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu yidhi niman yahow anu safka markaan gala buu yidhi imaamka aan gadaashiisa istaageen salaadda xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu yidhi salaadda inaan ilaahay hor taaganahay baan soo xaadiriya ucbud اllaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayno ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaya wuxuu yidhi markaa waxaan ka fikiraa markaa salaadda dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaadoo layidhi ilaahay baa kuu yeedhay oo xisaabtaa lagugu yeedha soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dembeeyey oo la qaaday kii iga horreeyey oo la qaaday waxay salaaddu ii dhammaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha keligaa baa ku hadhay haddaa ilaahay kuu yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenkaa iyo shucuurtaa baan salaaddeeda ku dhammaystaa buu yidhi haye raislii ninkuna dareenka ku dhammaysataan masaajid annagoo habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat alcishaa وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد آمين وركعتي إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكو جرا صفقة هوري صلاة مركي لقى بحيب إمامكو يري
وآمين تلا بدل كذا كنتن والله من حقه أم بلابه والله بلابه نبلانه والله وأكون ضربه لا إله إلا الله أرجع متبايد الشيخ كواس ويبقى قيلينه واحد ما أنت مسلمين إلا من رحم ربي مساجده كنت كان يوردن وإن قد قيلين مويانا أدو يدوي كل جا جودها كوضح هذا الله بقول والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك يقف النور الهداية أي دكتي وحلقوا قرتابو يري رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا قدام بين يوم أي قف مؤمنك قلبك سجع على عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لغو قرتا وحاكمد ابو يوري رسولك انت قفك مؤمنك اجش ايسن كوئمن اسقاد مشهد ديار من منا لا يكره الموت كما انت مسلمين تا نولش يا جيريدا نولش جعل له أشياء ماتريالك هي العكتة يا عملك الصالحة قلبك إنه هذا دباتة إنه قلت ما دوحوا إلنا يا لعكته إلنا يا وحول العقد ده هيسا مشاكلك ويحل اسمه خالق يا مخلوق أنا ما أنتم مضوا كلا قرن لا هيبة خالق يا مخلوق إلهي ما دون يا قلبك عمالك لإنه وجهه إلا حق سموه يعني وما شيء إلهي أدونك وكفير يبو رسولك لقلبك علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقادة هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونك الأولى فديك ورا ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لغو أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلا بريدي سي عبسي دي سمو يعني وحمنت كلية جرك الله شاقين كليته القلب دعمه هو اللبو لغوه هو اللبو عنده هو اللبو سنك هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو قربه هو اللبو بوذده هو اللبو لكن قلبك هو مد كلية بحا قلبك مد لوغا دقي وحبنت كلية جرك بنا هذا كما مشبه رسولكم إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرك بنا هذا هدي حقاك تجرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك معوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بنا آدمك وحي نقونيان حبنا مرنا إلهي عن عسيان قيسا كدعين مرنا إلهي إني عاصيان وأدكان ما دام حبين تاسي ما أنت أي بكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيان دقهيني وحي مقلان بي دقيسانيان قعمهيني وحي الربان بي قبانيان لغهيني ماشي الربان بي آذيان دقالهيني ماشي الربنا كبحينينا هذا الكيني ماشي واحد ضناكو هاللينا فحمد حسن البصري رحمه الله يا يري صد السنة من قسل أفرت السنة من كفتمن وحن سوغاري الرق يا أقوام وحن سوغاري أن مركان لجوغو عن اسكم مليني إن أنا نقول عن اسكم مليني وإمامك وخير التابعين ويان وعالمك تابعين توقع علم بنا ويان وحا هذا الكالي صد السنة من قسل بويري أفرت السنة هذا الكفتما إيقام الصوبحين waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynay inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sadaaqay hadday jirka xubinta hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلهي أمركيس إلالي أذيك إلهي باكو إلالين لأن علماء السلف كمدها بقول يلا باتنجربوا نقد داديس أيو قاري
tinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirku leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxa lagu yiri da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhalinyaradii ka yaryaraydoona way buusbuuseen way gaboobeen adoo maxaad cuntaa baa laga yiri noo sheeg wuxuu xadiiskaas ku amal falaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmada araga ilaahay kuma caasin buu yiri ilaahay aragiibu quwadii aragu ilaaliyay buu yiri nicmada maqalka ilaahay kuma caasin ilaahay quwadii maqalku ilaaliyay buu yiri nicmada maaragtaan xoog iyo dhalinyarnimada ilaahay kuma caasin nicmadii dhalinyarnimadii iyo xoogii baa ilaahay ilaaliyay ihfadillah yahfadka baa ku shaqeeyaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinay inagana maanta dhalinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratul macaasi waa macaasida weeyaan amarkaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeyahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa ka yidhi xor baad tahay addoon ilaahay baad tahay haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimid waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimid markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhaha waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adoo ad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baa anu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotana kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahay hay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey hay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bulaacad socota ilaahay baa nasakhiray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biya ka buuxa waxa bini aadamku ay haystaan maanta ku faanayaan ana ka dhaqaalo badan ana ka fooq weyn ana ka meherad weyn ana ka reer badan ma jiro waxaasna wax ku taray ma waxaas man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu ba nabi guri niga maalika qiyaamaha amalkiisu uu la haro uu amalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan hore ku dhigi maayaan إيمان يا أعمال با إلهي دون يا ولا ليال كن عبدا لله جل وعلا لحدا السنة هاي ستاكلية لحدا كاسنا وحال الدون يا إنا ظن ولاتو صدا الدونك الدون بات هذا لحدا كاسنا الدنيا دا زوجتد عاد كن ولاتد الدون نمو مال انت نفتو أي كاد عدد كبعد الدنيا دا هذه واحد كون بلا ميسا حرية بكون بلا ميسا حرية من صالحين تكمدا كان يصوم النهار ويقوم الليل سكرات كمركون قبطيب وقصل بلابي قصل ونحن وصلوا قصل يكونوا سكرات مركا واسع مساعدنا هلا يساب اللقيد مساعدنا كفتما يساب قصل يساب وحيد اوهين انو ان ما يستيبودي ما انت لقى بلا فرحه اي بلا ما يسبودي ابن عباس رضي الله عنهما
نعش كي سمركي لقو قادة قبرك اللي قليي هاتف وحال مغلي آيات القرآن كوعل علينا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وآية سقاشا سنو أما دوري سديتا سنو وعو كنا ميسي وهم كنا ميسي نولوشي سودا مروا إلهي عابدو يا مروا مدى علمي قبرو مروا إلهي عابدو يا مروا مدى وحبرو مروا يساقوا إلهي لمن عجودو يا مروا دادكو سيدا إلهي أبريان وأشيغو نولوشي سودا وحو كنا ميسي بين عبادة وعلم ودعوة وكنا ميسي marka 60 sano 70 sano ilaahay nasiiyay waxa la inoo keenay adduunyada walaalayaal inaan ilaahay jalla wa ala aan kula baayac mushtareen Khulayd ibn Abdullah baa yiri muuminka saddex meelood in laga waayo ma habuudi saddex meelood baad leedahay masjidun ya'muruhu وبيت يستره وحاجة لا بأس بها بودي صدح ذا أيا قفك مؤمنك الله دوني وقت يسينو كبحي مساجد وعمرايو مر صلاة بوكو تغنيا مر قرآن بوكو آخر سنة مر علمك علماء كبرنا مر ضدك مسلمين بلا صلاة ضيعا أيو فكر يا انتو زيارته أي مساجد كي علماء علمك يا خيرك وقويا ريا وبيت يستره qofka muuminka meesha saddexaad la doon in lagu yimaado aqalkaaga waqtigaaga ku bixiyo ciyaalkaaga islaantaada la fadhiiso saxaabta rasuulku masjidka markay joogaan arday bay ahaayeen guryahooga markay togaan muallimiin bay ahaayeen mujtamaca kale markay dhex socdaan muballiqiin bay ahaayeen difaaca diinta markii loogu yeedhana mujaahidiin bay ahaayeen masjidka markay joogaan arday Abu Bakar baa wax baranaya وعمر بابرانيا وعلي بابرانيا وعثمان بابرانيا تعليم وتعلم رسولك كبرنا يعني عليه الصلاة والسلام مرنا دحلوده إصبران إيه إصبريان مركي قريوه وقت تقانا ومحي ومعلمين ويان يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كوا إلهي النبي الرومي يو ريرهين النار تكالب حصد با إلهي ابن عبد الله علي بن أبي طالب وحكوف السري وريركين الدين تبرا ويان معلوم مدرسة يا ملعمد يا جامعات مقالة مدينة عهد ميل هين ننكستو صحابيا آية القرآن كا يا قولك النبي كسو مغلو أيها بين غيرك سولة غيرك سبراي مركاسا مركليا يا عيالك يا ضمرك يا رجي وحين نقدن طد علم جوج ملك لي وضع الصعدة وعبادة ملك لي كوضع الصعدة والدين ملك لي كوضع الصعدة وفهمك الدين ملك لي كوضع تاجر مجتمع وحين نقدين هذا الشاب قالوا إنه مرتيا ما أنت مسكين كنبي محمد اعتماده ماشي اللقو مرتقى دينا والديار أقل دي دين اللقو برينا والديار مجتمع عجيب ويا المجتمع عسى قرية هو كمركي تقانا معلمين بين نقونيين مر علي مركي دتك كلا تقانا مبلغين الذين يبلغون رسالات الله بين نقونيين دفاع الدين والوطن دين مركي نقطة الدفاع عيقنا مجاهدين بهاين بالمال والنفس نفتو دي مالكو دين تلاكو دفاعي مركا مسلم كو حالة دونا يا وقتنا مساجد كاغسي وقتنا قوري كاغا رير كاغا يومت كاغسي وقتنا وحال لقارب عينات كشغيسد كسب حلالة كسب حلالة ساد حاران وقبت بادد ساد مسألة بني آذن كأدو قبت بادد ساد النقطة يد العليا قعدت سريسا إلا بحيث الصدقة دبو النبي قولي أياك خير بدن تصوصي سيدك وحوي دي سنيسا صدح دا صفا قفك مسلم كالله قدوني صدح دا ملود لكن إنكو الصهمالي هدانا دبي عدنا كورما دبي عدنا إياه نقب بدلي دد أدونك مقاحيون فرديو شاه عباي أو شاه كينايا ووها عالم كدعي للصعود الصوماليون بالله يا ما أنت كشيء بيت المال ودنا إيش هي ودنا كمدة آيات نين عالمة ومدرستها هي آيات زيارتي لغة عربية أنا حبت يربط ورني مركز يقول من أين مركز أقول من جيبوتي مركز سوري قريب من مكة مركز أقول ما سمعت طيب صومال قريب من مكة
ورا كانوا شيء أرض الحبشة قريب من مكة مكة هي مدينة هي عيال كقرآن كودي جاي مويانه عالم كواحد كسر وربه كما هي سنة كنا وحال لقيا با كنتن أرضيا وحفظة كتاب الله نصوص صار سومالي محوص صار بالشك أفرت السنة كهر وحي ودك إنه كنت ميبال هذا لا يا إلهي وما تصعدان وما تشاكين إنسان وما وحنوب بدنها وحن لو ديرن كم مشغول سن سيدا مركا هرمرا كو غارينا ورلا بدن اندوده كوكو تالا بالغوليه إلا أدويدا كو إيغو إلا آخرة كو إيغو وقتigaagana saddexdan u qaybi 8 saacadoodna waxaad ku camirtaa masaajida 8 saacadoodna waxaad ku camirtaa reerkaaga iyo ubadkaaga iyo naftaada xaqeega 8 saacadoodna waxaad ka shaqaysaa kasbi xalaala maxaa ka tagay baliisha 8 saacadood masaajidka salaadii baad ku tukan waad ka soo horeyn waad ku dambayn quraan baad ku akhrisan dhikri baad ku samayn xalaqadaad ka qayb gali culimada dhageysan dadka caamada dayacan ee cid u damqanaysa cid u tagaysa aynan jirin ee waliba dhalinyarada u badan ayaad gacanta intood soo qabatay masaajida keenay يا غلام أسلم غلام يهودي والنبي قال خدميني عليه الصلاة والسلام أي نبي قلت تبي أوي أو بكابا لقيري لقيسو كسعود النبي يركي راوتك لأن مركاسو النبي قال لي يركي رايو نفتو هديتو لقيق راي هيسو سكرادا حقا مدحو النبي كفر يسي مركاسو يري يا غلام أسلم اسكا إسلام مركا يركي را أبيه بيقو كبقي أبيه با إلهي كسيي أطيع أبا القاسم أبا وركي سيال فأسلم الغلام يركي را أو إسلامي وعو نبي كسو بحي قرقي إسوغا وجهي سفر حدو أي كم وقت أولي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار إلها وحن كحم بنيا يركاير سببتين نارتك قبت بادية بمحل برسولك يري يذهب إلى الناس اللي ما ديهي أرسينيين أي أقعد كيسين والصبرين هذا يقول والصبر بأن نبقى اللي قيد صبر إني دلان باي كفكرة يعني يكو اسنوحوا كفكرة يعني هنونان كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي النبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا إساقا اسكو جيدا ما عدك الوحو جيدو وإساقا كديقا لقد هذه يقوم قيسوا أي دقحييين يقوم قيسوا أفلقاديين وجه قيس الشريف كأغنوفت لقلته في وإساقا عليه الصلاة والسلام انتو اسكا مسحوا انتو ديقا اسكا بيه مال انتي ماركتانا يوم الطائف أيو لها وحا يقود ليان قرن معيانة وقوم كيقي له دم بدافو لها هبين هذا كمذا أيو النبي صلاة عائشة قرية يقول كقرنا عائشة أم المؤمنين مرقاس النبي هوستك سوق شيء وعلى عائشة عاوة ميدين بوكيدي ربي جهان عابد عاوة مسك كيدين مرقاس عن كيدي بيتنا وانكو دايس كعباديس مرقاب النبي استاجي لبدا آية ضاد صدو قل علينا يي آية بلال صلاة فجر بلال وأدمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم هبيندا للمدى كدادة إلا انتسا حالكو سجود ودولك ديك إيبه للمدى قويسي لبدا آيادنا معنيك وادقرن إسان آيادة هوري وحويان أريق النبي عيسى عليه السلام وبكى قيامة كورن دون إلهي هرتي واسكو بريالي دونو أي النبي محمد إفك دوشة دو كلها وأريق أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا عيسى ابن مريم أيا رب العزة كورن دون مالك قيامها ماذا كير قوم كاغر بني إسرائيل أنيق يهو يدي الله سكدي إلهي أنك دكتونا عابدا ماذا كيري مركز النبي عيسى اسبري يا ليا مركو اسبري يا لبو ورنا يا هذا عذاب سنة وأضمها
haddaad u dembi dhaafeysana dee amarka adiga iska le ereyga nebi ciise uu banka qiyaamo odhan doono ayuu nebi maxamed ifka dusheeda ku lahaa xataa nazala jibriil calayhi salaam markaasaa lagu yidhi yaa jibriil u tag muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka baa ilaahay ku yidhi yaa jibriil u tag muxamed xabiibkaygii waxaad ku tidhaahdaa ummaddaada waan kaa raalli gelin doonaa kuguna dhibi mayno adiga baa lagu yidhi waan siin doonaa ummaddaada siis aad raalli ku noqon doonto kuguna dhibi mayno iyaka wax adiga dhib ku geliya ka yeeli maynaba iyaka baa lagu yidhi markaa buu nebigu limadii intuu iska biyey ayuu salaaddii subax nebigu saxaabada tujiyey aawey dareenka iyo shucuurta maanta ikhwata aliimaani waalislaam aawey shucuurtaas cidna uma maqna ummadda walaalayaal inteenna saalixiinta ee masaajidda soo galaysa ee culammada dhegaysanaysa ee diinta jecel ee diinta baranaysa ee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala u damqanaysa innakaa laynaga rabaa ummaddan aan u fikirno oon wakhtigeenna 8 saacadoodna masaajiddeenna ku camirno waa mar waa xalaqad weeyaan cilmiga la baran mar qur-aanka la akhrin mar dikri baa la samayn saacad baa la fadhiisan sidii abu darda radia allaahu canhu markii la weydiiyey laydha abu darda saacad wakhtigiis cibaadadiisa ugu qiimo badan noo sheeg baa lagu yidhi xaaskiisa waxay tidhi wuu fikri jiray tidhi bas cibaadada ugu qiimo badan uu abu darda uu lahaa fikir keligii intuu meel fadhiisto ayuu ka fikiri jiray ilaahay cadamadiisa ayuu ka fikiri jiray diinta ilaahay 8 saacadoodna kasbi xalaala 8 saacadoodna xaqa naftaadii xaqa reerkaagii xaqa ubadkaaga salmaan iyo abu darda buu nebigu walaaleeyey salmaan iyo abu darda salmaan baa soo siyaartay abu darda xaaskii abu dardaayo wuxuu arkay umu dardaayo jirkeyga ay ka muuqato nafaqa darro oo dharkeeguna maaragtaana ku dulgoogo'ay markaasuu ku yidhi waa maxay noloshan aad ku nooshahay waxay ku tidhi saaxiibkaa dee nin adduyo u baahan maaha adduyo ma doono uu ka qaaday tiri faraha way dacwaysay moogta walaalkaa abu darda salmaanoo walaalka abu darda laa yuriidu dunya nin adduyo doonaya maaha isagaa dee noo shaqo tegi lahaa oo dharka naga bedeli lahaa oo masaarif noo keeni lahaa soo maahayn ha isagaa naga mas-uul ahaa nin adduyo maaha faruu ka qaada adduyo qaal waayahay waa sugi uu fadhiistay abu dardaayoo socdaa yimidde markaasay ku tihi war walaalkaa salmaan baa fadhiyo ku sugaya dibadda markaasuu uu yimidday uu salaamay cuntay markaa ayuu soo qaaday cuntadiibuu u dhigay markaasuu ku yidhi dee fadhiiso ila cun markaasuu yidhi maya anu waan soomanahay soonka jabi buu yidhi la cun waa sunnee uu la cunay habeenkii bay markaas garab seexdeen mar alle markuu salmaan uu dhinaca dhulka dhigay uu abu dardaana uu leeyahay salmaan uu kaa seexday markuu yidhi isla markiiba abu darda salaad buu u kacay salmaan baa yidhi war yaa seexo jooji salaaddooda uu seexiyey bal si fiican hadalka u dhegaysta meel baan u socdaa hadda kolkuusina malaha uu kaa gamay buu haddana yar kacayo markaasuu yidhi war seexo kana uu kaca kana uu seexiya kana uu kaca kana uu seexiya waqti sahar saacadihii dambe yuu yidhi imika ka haddaba ha wada tukana labadeenu weyn markay wada tukadeen ayuu fadhiisiyo wuxuu ku yidhi war yaa abu dardaayo i dhegayso rabbigaa xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin naftaaduna xaq bay kugu leedahay dee mid walba xaqiisa sii buu ka yidhi iska aamusa abu dardaa ilaa waa nin xalay salaata leelkiisa laga kala daadiyey oo soonkiina laga jebiyey weliba dardaaran la siiyey ma hadhine intuu soo socday buu nebiga ku soo dacweeyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah salmaan baa ii yimidoo soonkaygiina uu iga jebiyey salaata leelkii xalay tolan uu iga manciyey adoo halkan joogo marjicii dhannaaya ayuu hadalkaa isaguna iigu yidhi markaa nebigu muxuu yidhi sadaqa salmaan muxuu yidhi sadaqa he muxuu kugu yidhi wuxuu igu yidhi
naftu xaq bay kugu leedahay ehelku xaq buu kugu leeyahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay dee mid walba xaqiisa sii markaa buu nebigu yihi sadaqa salmaan run buu sheegay buu yidhi xadiiskaa ninka lagu akrinaya waa abu darda mise waa innaka bal ii sheega xadiiska ayuu ku yimid ninka habeenkiina salaad u taagnaa maalinkii oo dhanna soomanaa adduunyana faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimid waa ninkaa maahin anigii adiga maaha daa'iman jamaacadda waa iska taqaanaanoo nin baa beri 40 cisho aan kaxaynay mid baa qabto xadiiskaasu ku akhriyey markaa buu yimid oo wuxuu yidhi sheekh xuseenow anuu inima raacaya buu yidhi hee xadiisaad iga qariseen baa lay sheegay buu yidhi markaasaan ku yidhi muxuu haddee xadiis way badantay annagu culummo ma nihine arday wixii culummada ka soo maqleen dadka u sheegaanahay muxuu ahaa dee xadiisku waa sadaq waxaa laygu yidhi naftu xaq bay kugu leedahay islaantu xaq bay kugu leedahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay dee markaad islaanta iga soo kaxayseen ee adduunyada iga soo kaxayseen dee aw xuquuqdiisa uma dayicin buu yidhi war xadiisku waa sax weeyaane adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeennii baa dulman maanta wakhtigeennii adduunyada u batay mise aakhirada bal iga jawaaba midku u batay wakhtigeennii adduunyuu u badan yahay qalbigeenna maanta maxaa ku weyn adduunye mise aakhirada adduunyadaa ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadha way taabanaysaa saa darteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican waana walaalo ilahay baa walaalo ka dhigay muslimiinta waxay walaalo ku yihiinna waa maxay alislaam diinta islaamka walaalo ku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonaya walaalayaal oo qofka muslimka kale waa walaalkii walaalka muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso calaa kulli muslimin sadaqa waagu markuu barya buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu yidhi hadduu haysanna fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysan uu siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn sidaana markaasuu nebigu yidhi yuciinu da alxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu ay haysatee madluumka ayuu xooggiisa ku caawinoo uu u gurman oo wuxuu leeyahy war ninkan waa laga gardaranya gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduuna sidaas samayn baa nebiga laga yidhi wuxuu nebigu yidhi ya'mur bilkhayri dadku wanaagga fari hadduuna sidaas samaynna sharkiisuu ummadda ka haysan uu meel kala fadhiisan intaabaa qofka muminka sadaqa ugu filan buu rasuulku yidhi war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayey sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiista isfardhig sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa dilkiisana waaba lagu gaaloobaa buu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiintu walaal waa walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa ghaswadii yarmuuk 3 nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid a ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horreeye la gaadhay wuxuu leeyay biyo igu qabta cikrimu ahaa markii biyihii la yidhi ha lagu qabto ha la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kaleoo ka shisheeyoo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadha biyaha kii baa lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonahe ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninna uu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayuu leey isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anuu han dhinto walaalkay ha noolaado
muslimiintuna maanta maxay marayaan anuu ha noolaado aadu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa joogee muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaad ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiisku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culummada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji miskiidkii nebigeennuu soo galay alay slat slaam waa khasraji halkaa waxaa fadhida ansaar aws khasraj muhaajiriin xalaqad wuxuu dul tegay bilaal iyo salmaan iyo camaar ay fadhiyaan markaasuu yidhi kuwa haddeetoola maxaa looga baahan yahay buu yidhi kuwa ninku tolkii buu hele mucaad binu jabal baa ninkii halkaa qabtay war maxaa tidhi waan kaftamayna hadalkaana waan idhe markaasuu mucaad halkaa isagoo hayuu nebiga ninkii u geeyey sal lla alay slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmay masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyadduna aabba iyo hooyeynima buu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyadda ku hadalkeega bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu yidhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetoole waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninkuu tolkii buu helay haddeetoole kelmaddaa uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilahay u ka qaatay isagoo murtadana la soo dilay marka ikhwat aliimaani walislaam khayr baa inaga muuqdaa dad muslimiina oo luqo keliya ku hadlayaan nahay naku ilaahay baa naga dhigay waa ilaahay waa noo nicmeeyey wallaahi nicmadda ay soomaalidu haysato carabtay diintu luqadooda ku soo degta ma haysata maanta masaajidda iyo culummada iyo ardayda xafadatu kitaabillaahiya iyo maaragtaani madaarista iyo nashaadka dacawiga ee meel alliya meeshay soomaali ay degtoo dhan maanta ka socda carabtii qur'aanku luqadooda iyo dalkooda ugu soo degay wallahi inay nicmaddaa haysan maanta ayaan dhawayto annagoo madiinat almunawara joogna xashki imika matcamaan ka cuntaynayna ayaan ku aragnay nin dhallinyaro sacuudi oo surwaal gaaban halkaa ku jooga sita jiwaar masjid nabowi agtiisa matcam masaajidkii nebi maxamed aan ka dheerayn ayuu surwaal gaaban sita sheekh ismaaciil baa yidhi orbul xuseen oo eeg buu yidhi haan eegaa baan ka yidhi sheekh waa wax laga murugooday
jabuuti oo waddan uu gaal isticmaarsanayeyna sagaashameeyadii baa noogu dambaysay qof surwaal gaaban qaata waxaan ka wadaa nicmadda inaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacwiga masaajidda iyo bii'adda diiniga ee mujtamaceenna luqadeenna ku hadlaya ilaahay siiyey war waa nicmo ilaahayna siiyey ilahay aan ugu mahadinno la in shakartum la aziidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukru ljawaarix bilxamdi taduumu nicam wa bishukri tazaadu nicam xamdigu waa ka carabka weeyaan shukriguna waa ka camalka weeyaan salaatu leylku nebigu u kacay rakacad keliyuu ku tukaday 5 juz iyo badh ilaa lugihii barreen caaisha ku tidhi lima tasnacu hada waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar muxuu ku jawaabay afalaa uxibu an akuuna cabdan hada huwa shukr marka nicmadda ilaahayna siiyey inaan ku shukrino oo masaajideenna tacliinteenna dacwaddeenna khayrka aan ka wada shaqayna soo diyaar manihin insha allah dhahada waan soo ziyaaranay saad noo soo dhaweyseen ardaydiina culimadiina quraadiina allah inii soo dhaweeyey ninkana anaguna jabuuti baan nagu soo dhaweynaa noo kaalaya insha allah ya reer nairobi reisli ma socotaan maxay nagu dhacay waxu baad dhisaysaan aqla dhaadheere insha allah khayrkana waan biirinaynaa soo diyaar ma nihin dembigeena allah ha dhaaf dembiga waalidiinteena allah ha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allah ha shaafiyo mowtaadkeenna allah u naxariisto muslimiinta meelay joogaan kurbada iyo cidhiidhiga allah ka qaado muwaafaqay midnimana muslimiinta meelay joogaan allah ha siiyo isma haday kara allah ina hadeeyo sala allahu calaa nabiyina muxamed saabixuuni mashaayikh